kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteena faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena diradda ku saari doonaa guud ahaanba xaaladda ka taagan geeska Afrika iyo caalamka oo idilba waxaa kaloo daawadayaal ku soo qaadan doonaa dagaalada ka socda waqooyiga Ethiopia meesha ay marahayaan iyo wadahadaladii ka socday dalkaasi Koonfur Afrika oo qodobo xasaasi ah la isku afgartay xilli ay ku dhex jiraan beesha caalamka waxaa kaloo daawadayaal diradda ku saari doonaa deegaanka Somaliland gaar ahaan Puntland iyo waliba Somaliland deegaanka Tukaraq oo laga soo sheegay xiisad colaadeed qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaa daawadayaal ku qaada dhigi doona waxaana barnaamijka inta badan bay la falanqeeya saaxiibka Bidhaan oo arrimahaasi u kuurgalay Bidhaan oo ku soo dhawow saaxiib waa dhownahay hadaan ku bilowno colaadda ka taagan gudaha dalka Ethiopia horto waxaa hadda mataqaanaa maalinta berri ah ay noqon doontaa taariikh 3 waa maalinkii la qaaday dagaalkii TPLF ay mataqaanaa ku qaadeen saldhigyada ciidanka militariga ee Ethiopia waa gobolka markii laga hadlayo magaalada Maqale dhexdeeda ay ahayd maalinkaas mataqaanaa dabaaldeg iyo muxuu barordiiq dawladda mataqaanaa u sameynaysa halka TPLF dabaaldegayso oo ay leeyihiin waa maalinkii cadowga iska dul qaadnay maalinkaasi 3 November 2020 iyo mataqaanaa weerarkaasi ay qaadeen marka waxaad garan kartaa dagaalkii in muddo dheer mataqaanaa uu hadda u socday oo hadda 2 sano wax mataqaanaa uu marayo maantana waa xilligii mataqaanaa ay qaadeen dagaalka iyo mataqaanaa ay ku beegan tahay oo aad ku garan karto TPLF wixii marka ay maaganaayeen iyo wixii mataqaanaa maanta maxsuulka ay heleen markaan saas leenahay dagaalka markay TPLF ay qaadayeen TPLF waxa lagu qiyaasay militarigooda ilaa 250 kumar u qiyaasay waa military aad u xoog badan bay hayeen laakiin markay dagaalka qaadeen oo mataqaanaa ay laayeen military meesha joogay oo ay mataqaanaa afduubteen kuwa badan hub ka qaateen saldhigyada ay la wareegeen waa kii abi go'aan ka qaatay oo ahaa sareynta sharciga ha sareeyo iyo mataqaanaa ay qaateen waxa ka sii horeeyay in doorasho iskood inay qabsadeen yaa ka sii horeysay oo Ethiopia mataqaanaa ay diiday kadib waa kii dagaalka lagu qaaday dhammaan waa kii gobolka Tigreega lala wareegay kadib waa kii waanta aan saa u bureen la sameeyay laakiin hadan TPLF soo rogaal celisay ay qabsatay adiga inta wax ka dambeeyay jiid aan ku jiido ee baashiyay taagneed hadda wada hadal la mataqaanaa socdo wada hadaladii saan maalmaha aan bulshada aan u sheegaynayba waa la isku fahmi la yahay qaabka mataqaanaa war murteedka loo dhigayo yaa la isku fahmi la yahay waayo labada dhinacba nin kasta mataqaanaa wax uu tabanaya uu diidan yahay TPLF waxay tabanaysaa xasuuq iyo dhibaato loo geystay in laga xal mariyo oo magdhow laga bixiyo in mataqaanaa isku xukumaan iyaga oo laga dhaxbaxo in mataqaanaa doorashooyinka iyaga qabsan karaan ciidankooda gooni u noqdo waxaas oo dhan marka waa dal gooni oo ku dhex nool Ethiopia inay noqdaan bay rabaan halka Abiy isaga uu rabo in ay noqdaan TPLF sida mataqaanaa wadamadan gobolada kale ee dalka ka jiro kilalada inay ka mid noqdaan oo ah madaxweynaha in mataqaanaa la doorto laakiin doorasho magacaw ah iyaga ay keenayaan mataqaanaa uu noqdo ay rabaan sida kilada oo kale in la sameeyo yaa la rabaa iyaga mataqaanaa ma rabaan adee hadda ugu dambeyn waxa mataqaanaa hadda saacadaha soo socda Abusanja la hadli doona warbaahinta waxayna sheegi doonaan in afgarad laga gaaray afgaradka hadda qodobada hadda la leeyahay waa laga gaaray waxa kamid ah oo hadda la saadaalinayo in Abiy Ahmed uu yahay wasaaraha dalka Ethiopia si maamuli doono ilaa intii doorasho mataqaanaa xilligiisa laga gaarayo TPLF na loo ogolaado in gobolkooda iyaga maamulaan laakiin Abiy uu mataqaanaa kor ka maamulayo laakiin waxyaalo badan iyaga mataqaanaa gooni ay u lahaan doonaan laakiin waxa soo waxa lagu faahfaahin war murteedka soo bixi doono yaa faahfaahintiisa guud mataqaanaa yaa lagu qaadaa dhigi doona marka TPLF waxaad moodaa markii dhan laga fiiriyo in ay horumar ay ka gaartay wada hadalka waa lisma lahayn TPLF mataqaanaa way aqbali doontaa in Abiy uu sii joogo dhanka kalena Abiy lisma lahayn TPLF ogolaan doona in gobolkooda xukumaan lisma lahayn laakiin cadaadis baasaran oo dawladda Mareykanka iyo waliba wadamada reer galbeedka Afrika waliba markii dambe soo gashay la sheegaya si loogu cadaadiyo in meeshaasi aan lagu kala kicin inay wax ka soo baxaan mooyaan waa reer galbeedka u badan Mareykanka madaxweynihii hore dalka Kenya Uhuru Kenyatta Obasanjo oo mataqaanaa san ka socda muxuu midowga Afrika iyo wadamo kale oo mataqaanaa iyaga sida midowga Yurub dhammaan looma kala kicin waxa lagu cadaadinayay in wax soo baxo
wuxuu noqdaba marka in mataqaanaa adduunka laga gado siyaasadda ay Ethiopia way heshiisay oo haddana mataqaanaa dhaqaalihii Ethiopia loo furo 2 sano u dambeysay Ethiopia dhaqaal kama aysan helin meesha caalamka kii military la siinay iska badaa hore loo joojiyay kii booliska iska badaa hore u go'ay muxuu ahaa bangiga caalamka adduunka wixii laga helay way go'een kaabayaasha dhaqaalaha dhammaan waa waxa keenay sicir bararka ka jira gudaha dalka Ethiopia waliba gaar ahaan gobolka muxuu ahaa Tigreega uu ka sii jiraa asaga marka waxaas oo dhan waxa la doonayaa in hadda muxuu ahaa gargaarka bini'aadamada in la furo in mataqaanaa kaabayaasha dhaqaalaha dib loo soo celiyo dagaaladii mataqaanaa in la yar joojiyo ciidamada la kala qaado muxuu kuwan Eritrea xuduud dib ugu noqdaan iyagana waxaas oo dhan baa laga heshiinaya hadda socdo marka kan TPLF iyo Eritrea wuu dambeeyaa laakiin hadda midka Ethiopia hadda yaa taagan بدانو dad badan ba waxay isweydiinayaan maadaama dawladda Eritrea ay laftigeedu lu ku leedahay oo dalkaasi Ethiopia hadda ay u leeyahay hadda habeen hore khudbad dheer buu jeediyay waxa uu leeyahay Ethiopia cusub anaga dan noogu jirta inaan mar walba taageero 40,000 ciidan lagu qiyaasay ba waqooyiga Ethiopia ka dagaalamay Eritrea ay leedahay marka sidoo isu qabadsiin doona ama u raali gelin doona siyaasadda Afrika iyo wadamada reer galbeedka ni hortaas caqabad bay noqon doontaa waxaad ku garan kartaa markii awaanta hore la gaaray ciidamadii oo muxuu ahaa federaalkan ay ka soo baxeen gobolka Tigreega waxa ku haray kuwa muxuu ahaa Erehin Eritrea waliba Eritrea marka tilaabay qaaday oo waxay sameysay ciidamo ka mid ah jabhadda Axmaarada ee Fano yaa waxay ka biidideen in laga soo baxo gobolkaasi marka ciidamo badan oo ka tirsan kuwa Fano yaa lagu tababaray gudaha dalka Eritrea oo loo hubeynay أبي دور جرب كحضلي لكن كم أصلا قادر محها جرنال كماش هتجوجي مثلا مع عنجة ودي ذي مركا أفوركي وحد ملاين كرتا هذا اللفت هذا إن أحد وكسر جيسن دونه وايو وح شروع عقبان السو ما بتجينا بقى أو ما حساس لين هاي ميدو أفريقيا نكون مجران يجا نكون مجران وحنا هراي أو بحين بل عالم كم أمر قاتان فاهم إذا أنا قاتين هراي وصار ندوي داشة طيبة وسيدا ما تقناي محها كفرتا محل جري كوريا ده كروي كوريا ده بقوي أو كروي كقوسته فاهم إذا مركز حتى إني عقبت هالشيء يكون نقدان يجي لفته ولا يا باي هدي اللي رادو إذا كان هو أنت هلا بيه هدي لهم وأبي والله صوب حكويسة إنه يكون حرام وهذا نتقال كو وقرحه إثيوبيا هذا المرة إريتريا إنه قرحه مثلا لقى على السقبة أو لكن تيبي هذا مرة على أي نقطة تقال إثيوبيا كم إذا سنتها تيبي في الأول هيرنا يو إلى ليه على سكاسة إريتريا إن عدنا والله عبسوا الله قوي لفته بدانو aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan rabaa su'aasha ugu dambaysa ee dagaalada ka socda iyo siyaasadda guud ahaan dalkaas Ethiopia inaan wax ka weydiiyo daawadayaashana waan uga mahadcelinaynaa la joogooda waa aad baan uga mahadcelinaynaa waxaan noo soo socdo qodobo ay ka mid yihiin Sacuudiga iyo Iran iyo halkaas iyadana xiisad ka taagan tahay iyo xiisad u dhaxaysa Tukaraq oo Boocama ee maxaan ku dhahay deegaanadaasi Somaliland su'aasha hadan u soo noqdo ugu dambaysa ma laga yaabaa kooxda TPLF in ay abaabul dib intay u gasho oo ay ciidamadeeda maadaama dagaaladii ugu dambeeyay ay ku wiiqmeen in intay abaabul dib u gasho ciidamadeeda dib u dhisato in ay abiye dib dagaal ugu qaadaan ma laga yaabaa mise dagaalo way soo arkeen wax la leeyahay hadda hore bay u socon doonaan may TPLF ma quursanayso TPLF ma quursanayso mar kasta oo chance ay helaan hal bil haddii chance helaan xabada laga daayo iyagu is abaabulayaan khasab way taas marka hadda lafteeda heshiiskan haddii uu sii jiro muddo hal sano ah ama 6 bilood haduu jiro khasab inay abi meesha ka tuurayaan waa laazim taayade laakiin abina uu ka warqaba asaga laftiisa uu og yahay nimankan inaysan arbis meeyin nimanku dhurwaayo way ma arbis mayaan marka saad daraadeed marka asaga laftiisa inuu mataqaana uu hankool iskaga hayo ma ogeysi kale uu sameyn kara malaha inuu isku dhaxdo muxuu ahaa sirdoon in uu la shaq muxuu ahaa iyaga iska ilaaliyo mar walba dhaqaaqooda la soo iska hayo isku hay way bas way waayo waa inuu isku ilaaliyo iska ilaaliyo waayo haduu iska ilaaliyo mataqaana waa uu nabadgeli uu isku ilaaliyo beesha caalamkana uu mataqaana ku ilaaliyo danahooda ku helo si kale la sameyn kara malaha aad iyo aad baad u mahadsan tahay bidhaana waxaan tagaynaa dal wada maxaan ku dhahay Somaliland iyo Puntland ma tagaynaa waxa jira in Somaliland iyo Puntland xilliga Cabdullaahi Yuusuf bay soo bilaabatay khilaafka u dhaxeeya Somaliland deegaanay sheegataa maxaan ku dhahay Puntland deegaanay sheegataa hadda maalin dhaweeyay waxa jirtay in 9 kilomitir meel u jira ay tagaan ciidamada Somaliland marka bal arinta ku socda horta hadda meesha ay joogaan waa Boocama afarta maxay u jirtaa 75 kilomitir bay u jirtaa maxaa magaca caasimada Puntland ee Garowe waxay mataqaanay Somaliland ay rabtaa
in ay samayso xadkii u dhaxay Talyaaniga iyo Ingiriiska inay ku noqdaan bay rabaan waayo waa sida kaliya ee mataqaanay ay madax banaani adduunka ka raadin karaan ee dhaha anaga xuduudaha dhammaan waan xukunaa oo anaga Ingiriis baan gumaystay dhulka Ingiriisna waan haysanaa laakiin dadkii hartidii yaa mataqaan la kala qaybiyay marka harti aan leeyahay dadka qaar inaysan fahmin baa dhici karta hartidu waxa way waa warsangariga majeertaanka iyo dhulbahantaha dhulka hadda la degay boocama dhulbahantaha degan dhulbahantana jabhada badan buu mataqaanaa yuu leeyahay jabhadiisa magacyaha ay leeyihiin marka arto waad la yaabaysaa waxaa la kala yiraahdaa jabhada mataqaanaa Uhud jabhada Badr jabhada Hunayn ma xilliga nabiga la joogaa fahmaysaa marka labada dhinac ka kulmaystaan marna makaadinta waxay u tuurtaan dhanka Somaliland marna waxay u tuuraan dhanka Puntland labada xildhibaan iyo mataqaanaa wasiiray ku leeyihiin marka waa deegaanaha wadana mataqaanaa marka la yiraahdo asaasiyaadka nolosha ugu hooseeya way aad u babaasan yihiin way labada mid xukumaan labada mid xukuma laha marka korneelka Muuse wuxuu rabaa inta aan la gaarin 13 November oo xilliga ugu eg yahay mucaaradka diidan yihiin ka hor inuu dagaal galiyo xuduudaha uu gaaro uu rabaa oo dhaw wadanka dagaal buu ku jiraa mucaaradka uu ku jabiyo oo dhaw mataqaanaa wax ka soo horjeedaan in Somaliland xuduudaheeda inay adkaysato Puntland abaawul hadda yey wada awlka wada waxa way crash ba waxa hadda lagu cadaadinay ilaa xaga shalay ama xilka ka deg ama buucama qabo waayo tuulada isaga laga soo doorto maxaa la dhigi karo uu matala Somaliland ba xukunta marka wana madaxweyne ku xigeen Puntland yuu xukumaa marka hadii uu xukumo maraha marka waa in mataqaanay dhulkooda ay soo ceshadaan hadii kale ahayn kursigan madaxweyne ku xigeenka warsangari baa la siin iyaga mataqaanay soo ceshanay dhulkooda waa inta dhanka kale markii la fiiriyo labada ciidan ee Puntland iyo Somaliland waxay dadka siyaasadda ka faalooday deegaanadaas waxay tilmaamayaan bidhaanow inay ka awood badan yihiin ciidamada Somaliland oo moodo inay qaab ka yar qalabayn iyo yar bala xoftada dhanka inay kaga badiyaan maya waa qalab markii la yiraahdo iyo ciidan isku mid way waxa isku mid ka yihiin labadu Ethiopia haweenaysay Puntland waxay siinaysaa hubka Ethiopia kuwan hubka Ethiopia siinaysaa waxay soo gateen baak ay ka imaadeen ma jirto way adduunka Soomaaliya cunug qabateen dhanka hubka saaran hub ma kaysan karaan marka intee kaysanayaan ma awoodaan inay soo gataan saadaraad marka wixii soo hubeynayay Ethiopia ahayd markii laga tago hub si qarsoodi dhanka Yemen lagu soo gelin jireen wuu jiraa oo laba dhinac mataqaan u iman kara laakiin dhanka bootada iyo baal xooftada iyo baakigi labada dhinac way leeyihiin nimankan isaaq way nimankan waa majeertaan waa lagu eegafaanka marka laakiin dagaalkaasi muddo dheer uu soo socday wax hadda bilaabanay maaha waa Cabdullaahi Yuusuf waa Cadam Muuse waa Cabdiweli Gaas hadda soo Faroole kulli way soo socotay marka meeshanna waxay iska noqotay meel bahala galeen ah waayo qabaa'ilka dego yaa labada dhinac mataqaanaa ka shaqeysanay waxay leeyihiin odayaal labada dhinac mataqaanaa wax ka cunayo saadaradeed marka dadkoodina uma roono deegaanka uma roono iyagana isku ma roono hal dhinac hadii raaci lahaayeen darajay gaari lahaayeen hadii Somaliland ay raacaan madaxweyne ku xigeen bay heli lahaayeen way ku tartami lahaayeen way qaylin lahaayeen hadii Puntland raaci lahaayeen sidaas ku waxban bay heli madaxweyne noqon lahaayeen laakiin labada midna ma raacsana saadaradeed marka xuquuqdooda waa la duudsiiyay labada dhinacba هاي سوما مودد سياسي دنتيس أسقو وطا إنه bulshadii deegaanka ku noolad uu kala qaybiyo Soomaa moodada iyagina ay u midoobeen ma uu midoobayaan ba because waxan siyaasadan Soomaalida qabiil bay ku saleysan tahay qofkan muxuu siyaasi ku ah dhanka qabiilka soo galiya anagoo reebele anagoo reeman ku dhaho qofku uu raaci marka inta qabiilkiisa jafadiisa yaa markii mataqaan la safanayso marka meeshii waxa ka baxay marka wixii loo qaban lahaa bulshada siyaasiga bas yaa wixii mataqaan ayaa qaadanayo marka waxaan leenahay kulli kuma faraxsanin dagaalkaas ilaahay mataqaan kala qabo jawaabada sida way aad iyo aad baad mahadsan tahay badaan waxa soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena waxaana ku soo qaadanay daawadayaasha u sheegnay in xiisadaha ka taagan Sacuudiga iyo wadamadaasi hadaan tagno deegaanadaasi khaliijka bal ayada maxaa u dambeeyay والله خليجك iyo Sacuudiga dandaansi ba matana ka socdo Mareykanka Uli Biden oo hadda dhawaan hadlayna wuxuu sheegay inuu ka walacsan yahay qaabka Iran matana ay wado oo laga cabsi qabo in dagaal toos ah ku qaado Sacuudi Arabiya Sacuudi Arabiya san ognahay markii la yiraahdo dhanka militariga aad bay matana u hooseysa oo Iran matana loo bacdi karo marka khilaafkan muddo dheer matana soo jiitamay oo xitaa waa ki Iran loo diiday xajka oo intaas caqabad matana la soo kulmeen iga laftooda isku dhacoodana wax mataqana hadda maanta bilaabanayo ma ahan laakiin maalin ka dambeeyo uu ka sii daraya oo hadda xilli hadda wax gaaraysa mataqana la isku hanjabayo in mataqana hubka casri in isku adeegsan doono
colaadooda waxaa ugu darneed oo mataqaana ay ku soo bandhigeenna waxay dalka Yemen oo mataqaana labada dhinac mataqaana ay weerar ku qaadeen kuwana Xuutiyiinta ay la socdeen kuwana ay muxuu ahaa Sunniyiinta kale mataqaana ah wadamada Carbeed ee Khaliijka ay wada socdeen hadii Sacuudi meesha waa laga qabsaday oo Xuutiyiinta meesha yaa loo wareegay batatanba dawladda Sunniga ay watay waxay noqotay mid mataqaana dib joog ah oo Sacuudi mataqaana Yemen ka xukunto iyo iska noqotay marka qoraalka uu soo daawacay dhawaan Biden oo uu aad ugu walacsanaa yaa hadda mataqaana aad loo wareejinay oo ku saabsan xiisada u dhaxaysa Sacuudiga iyo mataqaana Iran oo la leeyahay in Iran ay gantaalo ku tuurto yaa laga yaabaa dhowr mar hore way ku tuurtay laakiin waxay ka soo tuuraysaa dhanka Yemen ay ka soo tuurayeen laakiin hadda mataqaana inay Tehran ka soo tuurto yaa macquul ah aad iyo aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa saaxiibka Bidhaan oo inta badan ka falaalooda xaaladaha geeska Afrika iyo guud ahaanba caalamka daawadayaal intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona waxaan kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo